الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى إخوانه من المرسلين وأصحابه الكرام وأهل بيته الطاهرين الطيبين. عباد الله اتقوا الله وراقبوه في السر والنجوى. ولا ليال خطبتنا waxay ku saabsan tahay mowduuc ay muhiim tahay in badan in la isku baraarujiyo dad badanina ay run ahaantii moog yihiin lagana yaabo inay baraarugaan gooraan waxba laga qaban karin. arrinka noocaasi waxa weeye in ihtimaam fara badan la siiyo aadna loogu mashquulo fikir badan iyo xoolo badan iyo juhdi badanna lagu bixiyo mowduuca ku saabsan tarbiyadda awlaadda ku saabsan. awlaaddu waxaynu ognahay walaalayaal waa nicma ilaahay bixiyo weeye. allah caza wajal wuxuu ku tilmaamay ziinatu alxayaati addunyaa inay tahay waxyaabaha adduunyadan lagu qurxiyey. dhinac kasta marka laga eego dhallinyaronimadu way ka qurux badan tahay odaynimada, way ka nashaad badan tahay odaynimada ama marxaladda sheekhuukhada loo yaqaano. nafta waa laga kalgacayl badan yahay ubadka yaryar kuwa waaweyn. haddaba haddii arrinku sidaa yahay quruxdaasi foolxumay isu bedeli kartaa, farxaddaasina tiiraaye iyo murugay isu bedeli kartaa. sababta oo ah qofku wuxuu gurtaa wixii uu beertay. wixii aad beeratay mirihii aad dhulka ku daadisay nooca ay ahaayeen ayaa kuu soo baxay. ubadkaasi markaa haddii la tarbiyadeeyo, si fiican loo barbaariyo, juhdi badan lagu bixiyo, dadaal badan lagu bixiyo, midho fiican baa mustaqbalka ummadda u soo go'aya. horumar kala duwan oo dhinac walba taabanaya nolosha ayay gaadhayaan. haddiise la dayaco oo laga mashquulo oo la danayn waayo oo ubadkii uu shaaricu tarbiyadeeyo, ubadkii ay cid kale gacanta ku dhigto, hadhow noloshii way adkaanaysaa. waxyaabo badan oo hadhow la odhan doono anna haada waxaas sideebay ku dhaceen ayaa soo baxa. in badan bulshada ama bini aadanku waxay ku dawaqaan midhaha asbaabta ma daneeyaan. qofki waxaa laga yaabaa inuu dayaco ubadkiisii, hadhow muddo ka bacdi in dhibaato fara badan oo aanu xamili karin ay kaga soo baxda ilmihii. dabadeedna uu yidhahdo war waxani xaggee iga yimaadeen? waxay ka yimaadeen aday kaa yimaadeen. sababtoo adigaa dayacay, adigaa mas-uuliyaddaadii gabay. adiga markaan leehay jiho keliya ma aha, ubadka cid gaarii ma tarbiyayso, ubadka mujtamac oo dhan baa wada tarbiyadeeya. mujtamaca oo dhan ayaa wada tarbiyadeeya. hadday xukuumad tahay, hadday waalid tahay, hadday jiiraan tahay, hadday shaaric tahay iyo suuqa ay tahay, ubadka iyo mustaqbalka ubadka waxa ka wada shaqeeya oo ninba inha ku yeeshee ka wada shaqeeya kutladan dhammayska tiran ee bulshada ama mujtamaca. haddaba walaalayaal haddii la dayaco waxaynu tilmaamnay in dhibaatooyin fara badan oo weliba xanuun badan inay ka iman karaan ubadka haddii la dayaco tarbiyadooda. haddaynu eegno sharciga ilaahay subxaanahu wa tacaala si mug leh oo waafi ah ayaa sharcigu inoogala hadlay inaynu ubadkan nicmada ah ee ilaahay ina siiyey haddaynu inagu is eegno
وحلاقة يا بدتك قاركود أما والدك قاركود إنه يصوم مرحلة ويراهدو إنه كان محد كده ليس إن قبل النقطة كود عامل حيد مركو حميل كرواية مشكلة كجا إيمان عيسى وبدكي مركي واوين هذا لكن هذا حق هراء كذب اعتمد الله يتعب كبحين لها حق ضبوك راح يصل لها شرعي هذين أجنو إلهي سبحانه وتعالى وحين شاقي ولبين فري إن أين هوس أجنو وبدكين يؤردين وأين كبد بادينو نار أين كبد بادينو سيدة ما تربية محلية هذا تربية محلية هذا ودست لما يسترن وآدم الله دسو يضع هالبيق لو قد يقول شرعي إلهي سبحانه وتعالى هالبيق هو شرعي إلهي مركين إنه مسلمين نهي سيس أدق أو متينا بين حيسنا وأينو كدل بنينا إنه وبد كان نسيدا إنه أدرس لهين الدنيا دودا إيا آخرة دودا بقى وعلى غير بعيد عن إنك إن الدين هيني أو قاله إيجو قاب قارة إنه التربية دايستان مركا هالبيج إيه تصالة كواس إنه معها إنه واحد جندق إيه تصالة إنه شرعي إلهي وكتابك إلهي السنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا شرعي قسم مقله أو إن عيال بتعبان إيسا أو نلص إن عيال بكتعبان إيسا أيو إنه راح إن أينو مجتمع أبدك أينو وحوي بربارينه مقالة ده ما أنت أينو كنا والله وأفراد السوتك تيموي أفراد السبب الشيء جوريو وجوري والبا أفراد معينة يكون ظنوا يوده هيدان جوريه يوبطي وإنتاص مركا هدي فرد قال صاد الصو جوري بعد اسمية هدي جوري اسمنا guriyihii kale oo dhan baa wada dhismaya aakhirkiina horumarkii iyo dawladii iyo wixii ay ummadaas u baahnaayeen aakhirihii adduun ayaa u hagaagaya ilaahay markuu ina leeyahay quu anfusakum wa ahliikum naara waxaad ka badbaadisaan nafihiinna iyo ehelkiinna ehel waxaa looga jeedaa cidda aad mas-uuliyadda u hayso ee xaaskaaga iyo ubadkaaga iyo wixii la midka ah ayaa ehel ku ah ehelkaaga marka naar ka badbaadi baa lagu yiri naar waliba daran ka badbaadi haddii haddaba khitaabkii adiga uu kugu socdo adiga lagula hadlay mas-uuliyaddu adigay kugu dhacaysaa waa inaad markaa naftaadana ka badbaadaysaa ubadkaaga iyo ooridaadiina aadan ka ogolaanin wax naar u soo jiidaya sababtoo adaa lagula hadlay وحنارو سو جيديا او آخرة إيا أدوم أي كو كديد ميان إناد كيلا عبسو مركالي الله عز وجل وحينو شاقي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها إهل كاقع فر صلاة فر أولي با كو صبر وحا لغو شاقي لغو تلماميا تربية معها كلمات عاد معلم تريد ترى دافتي ما أنت وحى كوري دنا وسكاوي ذاتي ووحب عند بالصعب إن اللي جد دالين وقفك أولنا على عضو عدا وتربية ذينا يوم والسلوكيات كودا يدقن كودا وفي صدق دقن كان وصمينا يوم ما مدخل دنبا وآخرية دون بدبيا مسوي واحد أحسن كام إمكان دب صعد دول بانتي دب صعد كاسي وحي كاح النبيسا وحيابا بدن نفطو يشعش إلى المقاحيها كشة كيسو إلى الفرد كود الرجال اسكتكتو إلى تقول جاي تتكسر كلا لا روتي هبين كيوم اسكان نقطة وحاصل بكاح النبيسا واصطبر على سيدو كان كريسا سيدو كان كريسا وحي دب صعد يكذب الشقي ولذلك واصطبر عليها كصبر أمر كاد أمر يسلد بتشوق هكذا علي إنه هو أمر يقار تبصعته يوم كدالي وصدق حاسس تبصعته سيدا يل ودنقد كدبنا وكدالي لا
واصطبر عليها. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلا ينوفي سنة ولا ليال. النبي يقول عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10. 3 سنوات قدوهود بالغورت أمرك لدى بتاعنا وأنت هذا قار سوق هذا يدنقد 3 سنوات ولما 3 سنوات كليا ما هي مالنتي 5 صلوات بالتو كذا و5 jeer maalintii amar far 5 jeer sanadkii waa 360 maalmood 5 ku dhufo adigu 5 inta ku soo baxay hadana 3 ku dhufo waa imisa amar waa boqolaal amar kadib haddii uu fartoomi waayo markaa ha loo wareego marxaladda ciqaabka in la ciqaabo markaa ciqaaba leeyahay. إذن وحين كقاعدنا تربيته إن أنا يهين هذا الكلية وقفكم مروس كي لهذا أما بوق أنت الله قرأ كلمة يراكوبا أما آيات يا أحاديث أن عمل لهين أما أن عمل كلام مراقبين إنه إلانين تربية نقول ميس من أنا كتيجي ميس هذه الصلاة واجب واجبات ككمدة 3 سنوات انت سو امره لغو ودي hadana inta laga hadina edbil looga wareegay waxa weeye waxay ku tusaysaa ahmiyada ay leedahay iyo meesha la gaarsiiyay. nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay qof kastaaba inuu yahay qof mas'uul ah oo mas'uuliyad saaran. dadkana waxa laga yaabaa haddii maanta la weydiiyo la mushkilada ay haysataa maxay tahay nin waliba nin buu ku tuuraya على شعب كنا إلى عند دولة مش كده دولة كذا بس يسوون ما تحمله يقيب ما أورانا إياه أنا كخلطا أنا وحيجيسي أنا قدي بسقون نقطة. ولذلك إلهي سبحانه وتعالى أصحاب محمد بدر يجوا يربي جولستين وقال لي أي كات كادين أحد باتمد يجي بعد سو قاري ولا يابين أن هذا بينادي قل هو من عندي أنفسكم بالكوي وأيدينك صوبت وأيدينك marka waxa laga dadkeenu ay ka cararaan qofku inuu qaato mushkilada qaybtiisa inuu qaato waxa laga wuxuu isaga tuuraya cid kale ku xawilaya qaar waxa laga inay yiraahdaan culimadii baa gaabisay qolo inay yiraahdaan tijaartii baa waxba ku bixineen hawsha dawladdu waxa laga taana shacabka baa liita وهذا كله لا ينفع. نبي عليه الصلاة والسلام وحنوت الماما يقف كستاب أما هايستيتسيو أما حقاته ومسؤول وحبا الله دري وانا لقى حساب تما يا مال التقيام ما كصاب حي مسوي ضيعي مركز النبي عليه الصلاة والسلام تصالى يا الكبحيي نكو مسؤول بالنبي عليه الصلاة والسلام كل عيسى مجتمع عيسى تربية دودا حاجاتين تودا إنه النقد اللبينة أنا حبيت بلوكيدو لما يسترسل مجتمع وناقيسة لو جاب هي وأنا لو يدينا يا أبا النبي يقول عليه الصلاة والسلام كبدنا ينوى مسؤولة تطبع ما أنت وحي كتر عبان يجوا قاعد كتأثري أين عندقن يدين تون وذاقين رجع يضمرك هيسكرب يا عان هيسكرب يا عان عقلك بالآدم كي كسوهر شدابا رجع يضمرك ويسدما يستران مسؤوليات بعصارن قبدا مسؤوليات النبي هو كنت المامي جوري جيدا مسؤولية كسارنت ذلك قاركود ومسكح دي لقى وحوي عتك لو حكوا صوته أيه وحسكوا رنا يعني كبدو ما جوري جوانا يفردون بعض وجوري جاي كشق قبضا وورشدي دمايد مجتمع مستقبل كبدري لاعيد ماشي على كسر باللعبتي ويان وقنتي نبي محمد عليه الصلاة والسلام نين كذا جوري سي مسؤول كتا آخرنا ولا ويدينا يعني إذن قف بالشدة كم يدول أنا وحبي مسعر رام بتشيلو قف كستبا ولا ويدينا يعني هذا ولا لا الموضوع هو موضوع إن الإثاريو وأن تلمامو أيتها وشديدو ما أهم موضوع خطبة جمعية محاضرة يلا يصدح طونا لقى يونيو واقعين أنا مشكلة وين باكجرتا وبتكيني
mushkilad weyn baa ka jirta waalidkii iyo ubadkii waa kala go'een waalidku gacani waxba uguma jiraan meelo kale laga hagaa caalamkiina maanta globalization buu noqday meel kaliya siidhiga looga tuma isagoo suuqa jooga suuqa kula leh internetkii baa kula leh noocyadiisii kala duwan Facebook hadduu yahay waxa la tirinaya faraha badan ayaa kula leh adiguna waa iska joogtaa hadhowna waxaad doonaysaa tiraahdo anna hada la wallah inaynaan hagaagaynin haddaynaan qodobkan iyo qodobada la midka ah si run ah aynaan waxa weeyaan isu dul taagin oo aynaan ka dhigan shaqooyinka ugu waaweyn ee bulshadu hadday xukuumad tahay iyo hadday shacab tahay noocyadooda kala duwan rag iyo dumar tijaar culumo oday dhaqameed noocay doontaba ha noqotee haddaan waqfa saadiqa oo run ah la samayn oo qodobkan hoos loo eegin oo tarbiyada macnaheeda la fahmin oo camal loo bedelin oo lacagta la gelinayo meelaha kale aan la gelin sidii ubadka loo tarbiyadayn lahaa war ubadka maanta jooga waa masaakiin xaqiiqatan waa masaakiin waxay ku yihiin dhibka ku furani ma furayn 3 sanadood ka hor ma furayn dhibkan meel walba yaala iyo teknolojiyada loo adeegsaday xumaanta aamin bay ka ahaayeen dadkeena waaweyni 30 sanadood 40 sanadood 50 sanadood ka hor qofka inay cid kale raad ku yeelataa waqti badan bay qaadan jirtay waayo qofku magaalada yar uu joogo inta ku nool mooye cid kale ma yaqaano cid kalena isma soo gaaraan maanta kuwa jooga caalamka inta leeg baa ku wada furan qurun oo dhan baa ku furan markaasa dadkii waaweynaa mas'uulka ahayna ay tarbiyada ka yaqaanaan dangad wax lagu garaaco kaliya idan walaalayaal maxaa ka dhalanaya haddii aynu tarbiyada hoos u eegi weyno waxaa ka dhalanaya mustaqbalkii ummaddan oo mugdi gala ma tasawuri karayna imika 40 sanadood soo socda ubadkeena maanta waxaan ku socda iyo sidaynu u moognahay ee ayna tarbiyada iyo ususkeediiba aan aad ba loo eegaynin ma ogaan karayna siday u noqon doonaan ilaahay ha badbaadiye magaalo iyo waxba bay noqon doonaan iyo bilaadiin iyo diin la'aan iyo ilaah dafir iyo ma waxaasay ku badnaan doonaan ma akhlaaq xumo iyo rag wax ka doona iyo qurun kale iyo waxaasay u ekaan doonaan ma saadaalin karayno haddaynaan imika isu taagin waxaa ka dhalanaya oo kale amnigu inuu gacanta ka baxo sababta oo ah amnigu waa nicmada bulsho ay ku noolaato weey amniga aynu haysano mujtamaca aqlabkiisa ee majority-giisu maanta waa dhalinyarada haddayna inagu gacanta ku dhigan cid kale gacanta ciddaasi hadhow ka amar qaadanayaan amnigana khalkhal ku keeni kara waayo waa cudud iyo xoog ciyaar laguma muquunin karo ciyaar laguma muquunin karo dawladay xagga kale u rogaan amnigay ku ciyaaraan firqooyin lusan baa gacanta ku dhiga boqoyo siyaabo badan baa amni darro ay uga iman karaysaa jaraa'imta badata jaraa'im متنوعة oo aynan hore u maqalba ayaa fara badata inta soo la isku soo daray ayaa in ka badaniba walaalayaal waxay nagu qasbaysaa inaynu hoos u eegno mawduuca inaanay muxaadaro la dhageysto oo deedna la kala dareero oo dacartay nagu kicisa aanay noqonay inay noqoto arrin amali ah oo xukuumad iyo shacabba gacanta la isqabsado وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه بقول ربنا إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك وخليلك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعنا بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينهم ردا جميلا. اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أصلحهم يا رب العالمين. اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم وعاف مبتلاهم، واقض الدين عن المدينين منهم يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.